wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Cadde oo weelinayo wasiirka dowladda nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood waxaana wafdigan laga hortagay meel ka baxsan magaalada Laascaanood iyadoo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wafdigan amay ka muuqata soo dhaweyntii ladii sameeyay ku sameeyay gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaad ka dhaahan kartaan ama ka arki kartaan isbedelka siyaasadeed ee dalku marayo isbedelka siyaasadeed ee shacabka uu dareemay waxqabadka xukuumadda oo aad moodo maalin ka dambeysay ka sii badanayo degmada iyo gobolka guud ahaan waa nabadgelyo waxaan rajaynaynaa soo dhaweyntiinan inay ka mid dhalato waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka gudoomiyaha baarlamaanka wafdida ka timi Hargeysa soo dhawaada dalkiina iyo dadkiina baa u timaadeen maanta waa la wada hadlayaa madaxweynihiina waa idin ka dambeeyaa gobolkani gobolada waa ka dambeeyay wuu qatana waxaad qabataan maanta waa la eegayaa doorashadii waa la isdiiwaan gelinayaa dadku waa diyaar wuxuu u diyaar yahay maanta inuu isdiiwaan geliyo Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka dowladda nabadeynta ayaa ka mahad celiyay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay waxaan mahad iyo u soo jeedinayaa waxa weeye marwo iyo muryooyin dadka reer Laascaanood ee ugu soo dhaweeyay nagu soo dhaweeyay aniga waftiga wasiirka nabadeynta bariga oo ka mid yahay waxaan u soconayna waxay ahayd inaanu dalka iyaga tagno diiwaan gelin baa soo socota waxaanu doonaynaa tirada inaynu isdiiwaan gelino inaynu dadka wax kula qaybsano tirada aynu leenahay cidna marti uma nihin cidna dal iyo dad baanu leenahay saama qaybsi iyo wax kasta waxaanu doonaynaa inaanu ku helno codka aanu leenahay iyo dadka iyaga aad iyo aad marka hore u mahadsantiin dadweynaha reer Laascaanood maamulka heer gobol iyo heer degmo aad iyo aad baad ugu mahadsantiin sidii gudoomiyuhu tilmaamay socodka iyagu wuxuu ku saabsan yahay ugu muhiimsan waxayna soo gaadhay diiwaangelintii waddanka dhan ka dhacaysay diiwaangelintaasi muhiimadda ay noo leedahay waad ogtihiin xaaladda gobolka Sool ku sugan yahay iyo meesha uu kaga jiro diiwaangelintii doorashooyinka horena waa la socdaa waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan inagoo riijin ahaan gobol ahaan isku mid oo isku duuban reer iyo qoys iyo beer iyo tuulo midna aan ahayn gobol ahaan inaynu uga qayb qaadanno la tartanno gobolada kale maanta waa la isbiidinayaa arinta ogaada inaynu sida ugu diyaar garowno inagoo isku duuban Mawlid Ali Star TV Laascaanood